gudoomiyaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka Ucid Injineer Faysal Cali Waraabe oo qaar ka mid ah warbaahinta kula hadlayay hotel Ambassador magaalada Hargeysa ayaa waxa uu faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay shir caalami ah oo kaga qayb galiyo magaalada Angola caasimadda dalka Rwanda. maanta baxay insha Allah taala waxaan ku socdaanaa Angola Rwanda caasimadda Angola halkaasoo shir 27 bisha oo ka socon doona shirkii Socialist International xubinta ka heen goob jooga ka heen xubin ku xamaanayeen ilaa boqol ku ilaa isku iman doonaan xisbi maanta waxa ugu shaqeeyay xisbigii MPL xornimada u dagaalamay Angola ruling body ah taasana tegna insha Allah. Injineer Faysal Cali Waraabe gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Somaliland Ucid ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay warar sheegay in khilaaf uu ka dhaxeeyay isaga iyo murashaxa jagada madaxtinimo ee xisbigaasi Jamaal Cali Xuseen waxaana uu gudoomiye Faysal tilmaamay lagu tartami doono murashaxiinta xisbiga Ucid uga qayb gali doona doorashooyinka la filayay sanadka 2017 ay ka qabsamaan dalka. marka leeyahay xisbiga Faysal waxa xaraa u iiminayay كل اسمها شو يود عرب مالك قاعد أحسن أنت بالآن كلا الحس احترامه لكن واحد يشيء حسب واحد خلاص كيا متشو واحد خلاف كتير متشو حسب كاستوما كدور شو دواته هو يصرف فيه كريا قال هذا حالة فلسطينية يأكل سوي كلية كتابنا حسب مرة سوى ترتنا أنا سوى بدوني ما هو وقت يودي على ترتنا قف روح اللي متشو والله ترجع بشرح نقول يا مركان وقالوا الدولة وقالوا تصوير سلعة ما كان مش ما هو خطر والاستغنيت واحد مش شرح دمجه. والله ما ترتمي شمال بالله. وين ما كرته أنا يمكن بقول لا ترى لكن وين صوت لو ما كان المصبح صار مثلا واحد يقول لك بيتك يعني مدحين لك ولا ترتمي يعني ترتم جديد ما اللي كنت على قف بيروح حرنت حسب العسل أديكم يلا ما أنا إلى حد واحد أنا بريء أودي على يعني إنه شرح شمال هنا عبد الشوا كيس كتير زين شوجا إلا هذا كلام تريش مشرح أنا هنا متشرت كلام أنا مشرح أنا متشرت لكن حسب ولا سقيمين يا على سقيمين طن إن شاء الله تعالى حسب أصابع لا بلا أنا سقيم هذا أنا لو حسوا بكتير واحد عقل كلام أنا شرفت إني أكل عيسى رقم للي هي حسب الفيسبوك إيميل حسب الكمبني مع كمبني اللي يبصر جمال وشرحي ما يبصر ويدو حتى عقب أساس ما كان حسوا أفلك هذا معك مروح laga weydiiyay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka Ucid inuu ka mid noqon doono murashaxiinta ku tartamaya xisbiga Ucid ayaa waxa uu yiri aniga iga mamnuucayaan tartamo qofka soo sooba xisbi wuxuu yahay xaq buu leeyahay aniga aayadii ugu soo degto tirafaysa ma tartam karo qofka waxaan ku aniga wax iga mamnuucaya ma jiro أنا كل يوم ترتمي كم لكن حير أنا يفهم ما ترتمي كلام دمجه هل حسب إذا ما كان أقيا صوت صاري ولا كتسمع قف كلا إذا وصوت شيء هذول إذا كمان صوت شيء ولا حسب ولا سمع القرآن حفر سنت ولا الآن شيء هذول قف كلا صوبه ولا ترتمي ما كان إنه إيشو لقى ده في سوا صوت ترتمي وحام نكوا وقاري قبقى يأكله قبقى حسين هذول فازج كل صوبه نكوا يديري لكن حام شيء حق بيان ترتمي dalkana xoogan galiyay inuu rag aan ogahay gacanta u galo oo in la rogiyo haduu galo waan suur taagay waan sidoo dalkana rag aan ogahay oo tabartoona qaado haduu gacanta u galo Soomaaliya oo dhamaanaysa si taas u dhicay waa inuu cid ka soo baxaa qof kartilo wadka dhinaca kalena Faysal Cali Waraabe ayaa waxa uu iska leexiyay eedeymo uu soo jeediyay murashaxa jagada madaxweyne ku xigeenka ee xisbiga Ucid oo dhawaan is casilay maxaa u tagay kaya burburay marka ka tagay xisbiga ceebiga tartamisankeega 15 sano xisbiga wali noo marti waa si dib yar noo soo si haw yar nooga tagay salaad sugan tukanaa naga tagay iskaas nagu tari gabagabadina gudoomiyaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka Ucid Injineer Faysal Cali Waraabe ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay warar sheegayay in dawladda dalka Turkigu ay dib u bilowday wadahadaladii u socday Somaliland iyo Soomaaliya iyadoo adeegsanaysa madax dhaqameedka ka soo jeeda labadaasi dal. Roomidan sheey Turku meel ku yiri salaadii isku jirto Turkigu arinta Somaliland meel xog soo booday in badan baan ka hadlay oo Turku inuu kaliya meesha maaha laakiin qalad wax badan ka tirsan Turkigu jira soo wuxuu wado لكن ملو يدو سرادي ما كاين ما جرتو كي اي soo baxday warkaasi
beenta raadka lahayn si xun baa loo maamulay waxa weeye haddaa waddan aad wax ka tirsanaysa oo waddan arrin aad leedahay uu si xun u maamulo suuqa lagama hadlee idii matagaa matelisa loo yeelo waxaana u yeela wasaaradda khaarijiga waad maqasheen waa BBC oo ka dhigaysan leeyahay arintaa ra'iisul wasaaraha waddankaas wuxuu u yeelay safiirkii waddanka u fadhiyay wax ka tirsanay markaas la weydiiyay arrinta maxaa ka jira laakiin tan mikrofon la qaato nimo wuxuu doonay ku hadlo siyaasadda waa la kala leeyahay arrimaha dibadda wasaaradda arrimaha dibadda weeye Cabdiraxmaan Fantastic Bulsha TV Hargeysa.